بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين waxaan guda galaynaa waqtigii su'aalaha iyo jawaabaha marka insha Allah waxaan su'aalahaas si talantaaliya u qaybsanaya ama su'aalba qofkii ku haboon uga jawaabi doona Sheikh Umar Faaruq Sheikh Maxamed Macalin Umal waxaan marka ku bilaabaynaa su'aashu waxa weeye haddii uu qofku ka tago camalka saalixa si ulakas ah haddii uu ka tago camalka ma gelaya jannada sida xadiiska aan ka fahmayno ee uu qoray saa'ilku leeyahay man qaala laa ilaaha illa allah dakhala janna muxuu xukunkiisu noqonayaa qofka kala saara camalka iyo shahaadada Sheikh Maxamed Umal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إيمانك عملك وكمت جنتنا إيمان بالوغلا إيمانكنا وقول إيو عمل وي معناه اعتقاد قلبك لو كنته iyo carabka lagaga hadlo iyo xubnaha oo dhaqan gala fuliyo wixii qalbiga ku guntanaa carabkuna uu ku dhawaaqay waxa marka la isku waafaqsan yahay ahlus sunna wal jamaa in amalku uu iimaanka kamid yahay meel badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa kamid ama sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam kamid na waxaad arkaysaan in macna waxa weeye iimaankii iyo camalkii saalixa la isku xidhayo iimaanka iyo camalka saalixa in la isku xidhayo mar haddii ay sidaas tahay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ruuxu ku dhawaaqo caqiido qalbigiisa ku guntana ay tahay oo aysan ka ahayn sheegasho been aysan ka ahayn aziimo iyo go'aana ula yimaada inuu sameeyo camalkii ay faraysay laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah shaki wuxuusan ku jirin wixii ay faraysay inuu la iimaanayo haddii aan wax ka hor istaaga uusan helin aziimadiina uu hayo shaygiina uu ku qanacsan yahay inuu la iimaanayo yaan shaki ku jirin camal la'aantu marka waxay daliil u tahay ruux haduusan camal la iimaanin waxay daliil u tahay عقدي iyo guntintii qalbiga ku jirtay inay daciifata meesha ba aysan ku jirin inaysan meesha iimaankii uusan ku jirin ayay daliil u tahay Abdullah ibn Wahab Wahab ibn Munabbih waxa la weydiiyay la ilaaha illa allah soo jannada lagu ma galabo sida yani su'aashan oo kale la weydiiyay markaas wuxuu la ilaaha illa allah waxay leedahay waa furaway furuhuna ilkule haddii aad furo ilkala la timaadana albaabkii wuu ku furi haddii aad furo aan ilkala hayn aad la timaadana ma uu ku furayo macnaha la ilaaha illa allah wa miftaahul janna jannada furo u tahay laakiin waxa ilkihi uu furuhu albaabka ku furi la waxa way waa amalka way acmaasha marka laba loo kala qaadaya ruux hadduu la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah intuu iska yiraahdo waligiiba amal uusan la iimaan la salaa wala soon wala zakka wala shay uusan la iimaanin waxa la waxay u anfacaysa ma jirto laakiin haddii acmaashi wax kala yimaado waajibaadka ah waxna uu dayaco qalbigiisana uu daacad ka yahay kelimada uu ku dhawaaqay waa muslim caasi awey وبالتالي mar hadduu muslim caasi yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala mashii'adiisu hoos tagaya hadduu doonana ilaahay subhanahu wa ta'ala waa iska cafinaya jannadu geynaya hadduu alla doonana subhanahu wa ta'ala cadaabku soo marinaya wala soo ciqaabaya laakiin goortii la soo ciqaabo jannadu ku dambeyn doona maadaama uu tawxiid ku dhintay iyo isagoo qirsan Allah subhanahu wa ta'ala shahaadateynku wixii ay ku tusayeen isagoo qirsan maadaama uu ku dhintay waxay culimadu ay isku khilaafsan yihiin masalada salaada hadduu ruuxu ka tago ama uu macnaha waxa way tukan waayo waa mas'ala khilaafiyo qaarkood waa gaalaysiinayaan qaarna waxa way waa muslim bay leeyahay hadduu salaad aan dhinto
taasi waa mas'alo kale wey laakiin waxa weeye ruuxa hadduusan camalba la imaanin bilkulliya khayriya oo iimaan baa qalbiga ku jira keliyata uu leeyahay kaasi waxa weye wax iimaana qalbigiisa kuma jiro laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullahi ninkii yidhahda jannada waa gelayaa xadiiska odhanayana axaadiis kaleeto waxaa jirta qaydaysa ama xidhaysa oo macnihiisa sii caddaynaysa oo nebigu sal alla alay wasalam macnaheeda ku sii caddeeyey waxaa ka mid ah axaadiista odhanaysa maalan khaalisan min qalbigiisa inuu macnaha waxa weeye uu ka daacad yahay waxaa ka mid ah axaadiista odhanaysa in macnaha waxa weeye uu shaki uusan ku jirin waxaa ka mid a axaadiista odhanaysa inuu caalim yahay uu garanayo macnaha waxa weeye laa ilaha illa allah macnaheeda uu garanayo waxaa ka mid a axaadiista nebigu sal alla alay wasalam uu ku faray salaada tukada oo soonka sooma oo sakada bixiya dhiiggiisa waa iga ilaaliya ilaa aakhirihi marka naskan keliyata ma aha nusuus kaloo fara badan oo sii caddaynaysa ayaa jirta wabittaali laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah oo keligeeda oo kelimo uun lagu hadlay ah janno laguma galo axaadiista kale ayaa macnaha waxa weye macnaheeda caddaynaysa wabillahi tawfiiq su-aasha ku xigta waxa weeye salaad ma lagu tukan karaa qol sawiro ku yaaliin ama madow ah yacni qol mugdiya oo sawiro ku yaalaan ma lagu tukan karaa sheekh cumar بسم الله الرحمن الرحيم الجواب أدونك كركيسة كمتال ميلا لغو تكاكري سيدايو كلا في عينا جوكت حتى ميلها حديث كل وقت تضبطها سيدا حرقيش أوكالي أما عيالك سبديس أوكالي أما كوانك أوكالي حمامك أوكالي كراهذا أصل الريبي وتنزيه والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور جعلت لي الأرض مسجدا حديثك تمام كيسا وحوياي فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي مركا لولك وحا الله أبوري دادكنا الله أبوري عبادة ألا قولك ميلا لغوتو كان كريم مجرد hase yeeshee meelaha lagu tukanayo in la hufaa la doonaya ay nadiif yihiin sawir muxuu hadlayaa meeshii lagu tukanayey yaan sawir la geynin ha hagaagsanaata meesha wadalika fii qowli rabbina tabaaraka wa tacaala watahir beytii lilطaa'ifiin waalcaakifiin waarukaci sujuud allah leh isagaa meelaha lagu tukada waxa uu waayeela aqalka alle kacbada wey هلا هوفو dadka ku tukanaya ee dawaafaya haloo hufo kolkaa meesha lagu tukanaya ha hufnaato dan hadday timaad iyo daruurase meel aan lagu tukan karin dunida guudkeed kuma taal wabilaahi tawfiiq salaanta islaamka kadib dhammaan culummadu waxaan weydiinayaa intaan muxaadaro dhegaysanayay ee shirarkan oo kale ah in diinta qayb uun baa laga hadlaa intii weynaydna lagama hadlo taasoo ah jihaadka waayo dadku way iloobeen jihaad marka miyaad ilowdeen mise idinkaanba bannaynayn noo caddeeya بسم الله الرحمن الرحيم سائلك حب أقال ما محمود شاه حسن إنه لحدينا فليه وياه محمود شاه حسن كليته أيا وحو دوبي ميقع عجل أما شريط أو جهاد في سبيل الله مركز ساهلك حب أقال معها أما الناحية الثانية جهادك نوعية بدنية مراحل بولية هاي أو شهادة إلى كجرنا قيب كمدوي مركز ميلاها كتمادين مركز هالكانتمادين مركز عشرة لقادان هايو وحصل المركز اللي باهين هايو وقيب كميدا مركز حقوقال معها أنا قوحان حصوصتا سدحي سقاشنكي إنان دوبي وحنفلها هي أول محاضرة سدح سنية بركور أمدوا إلى الجهاد في سبيل الله وهذا ما يستري دونا شيخ محمد عبد الوهاب وبالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم
horta maqaam kasta maqaal buu leeyahay sida la yidhaahdo yani meel kasta waxbaa ku habboon sharciguna qayb kasta oo diinta ku soo aroortay waxa weeyaan cid nasakhi karta ama diidi karta ma jirto laakiin haddana meelba shay baa lagaga hadlaa dadka culimmada ee hadlayana waxaa xadidaya kolba ciwaanka yani ay leedahay mu'tamarku uu leeyahay yaa xadidaya ha ahaatee way jirtaa runtii mawduuca ka hadalka laga hadlayo sida mawaadiicda kale looga hadlo inuu ka yiri ani laftaydu waa dareemayaa ihtimaamkiisa in intaa ka badan ihtimaam ka badan in la siiyo uu mudnaan lahaa laakiin si aad ogsoon tihiin wax in la kala farsamaysto waa fiicanta wax in la kala farsamaysto ma xuma maanta kelimadaa iyada ah maqalkeeda keliyata ayaa kuwan aad la joogtaan iyo kuwo kaletaba argagax gelinaysa haddaa idinkoo wax laydin siiyo oo gacanta wax laydinku hayo aad tidhahdaan waan jihaadaynaa de berida yaa idin beeli doona berida soo biilka la iska goosan maayo marka munaasabaad bay leedahay munaasabaadka qaarkood in lagaga hadlo runtii waa mudan tahay oo muslimiintu bal calaa aqali taqdiir haddaysan xataa waxa weye gacanta ka noolayn inay qalbiga bal noloshii qalbiga un ay ku jirto waa masale loo baahan yahay wey culimmaduna waa ka hadleen laakiin runtii waa mudan tahay intaa in ka badan in laga hadlo munaasabaad bayse leedahay iyo dad gooniye iyo macnaha waxa weeye meelo gooniyay leedahay wabillahi tawfiiq su-aasha kale waxaa weeye ducada loo yaqaano qunuudka loo yaqaano salaada subaxa gadaasheeda la akhriyo waxaa jirta dad badan oo waddankeenna haddii ay hilmaamaan ducada qunuudka ee salaada subax waxay la yimaadaan sujuudu sahwi marka qunuudku xaggee ku habboon yahay ma bannaan tahay in aan salaad subax ku tukado mar walba oo qunuud raaciyo qunuudka waa laba qaybood linnaasila dhibaato hadday muslimiinta ku dhacdo dagaal oo kale cudur oo kale abaar oo kale markaa in la qunuudo waa mashruuc alqunuutu linnaasila marka dhibaato hadday dhacdo waa waarid qunuudku wuu soo arooray sidoo kale fii ramadaanna wuu soo arooray midkaas linnaasila aan leeyahay oo hadday dhibaato timaada la qunuudayaana salaad subax kuma xirna shanta waqtiba waa lagu qunuudayaa hadday dhibaato jirto amaa qunuudkan salaada subax ah ma sugnaan waxaan filayaa laba xadiid oo ku soo aroortay oo midna uu tilmaamayo in nabiga uu qunuudi jiray ilaa uu ka dhinto midna tilmaamaya qanata shahran bil baa nabigu qunuudayey qabaa'il caraboo wakhtigaa jiray rag badan oo asxaaba iyo mucallimiin laayay buuna ku habaarayey qanata shahran bil buu nabiga waday iyo wuu qunuudi jiray isku saxaabi baa wariyey idiraab baa laga dareemay sidaa darteed qunuudkan fajarka salaada subax ah ma sugnaanin marka umar baa ii dhammaystiri doona isagaa kuliyatulxadiid ka baxay wabillahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim kolley xadiidka odhanaya nebigu sal alla alay wasalam wuu qunuudi jiray ilaa ilaahay salaada fajriga ilaa laga oofsado waa xadiid daciifa isaga ma sugna nebi kama sugna salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka kale ee odhanaya nebigu waa qunuuday isagoo habaaraya ricl iyo dikwaan labadaa qabiila la yidhaahdo isagoo waa xadiid sugan wey bukhaarigu ku yaalla iyo keyrkii ha ku yaallay laakiin saxaabiga soo uroriyey ee sheegay laftiisa ayaa waxaa laga sheegay nebigu sal alla alay waslam wuxuu qunuuday rukuucda ka hor mise rukuucda kadib ayuu qunuuday labadaba waa laga wariyaa marka waxay ahayd baa laleeyahy iyada lafteedu xawaadista ay ahayd dhacdooyin macnaha xilligii ay musiibadu dhacday ama nimanka uu nebigu habaarayay bay ahayd salawatullahi wasalaamu calayhi ama waxaa la odhanayaa qunuudkaasi wuxuu ahaa qunuud ka horreeyey yacni waqti rukuucda ka hor buu ahaa rukuucda kama dambaynin
kan la yaqaanay macnaha waxa weeye ay shaaficiyadii inagu aan laasimnana waa ka dambeeya rukuucdu ka dambeeya marka almuhim si la yidhaahdaba cinda jumhuur ahli ilcilmi iyo sida raajixaba yani qunuut la laazimo bacda salaati subxi oo keliyata la laazimo oon laga tegin oo loo arko bal inuu sunanka mu'akidka yahay haddii laga tagana sujuudu sahwi lagu kabaa yani shay sugan ma aha wabillahi tawfiiq dad baa waxay yidhaahdaan bisinka sababta loo qarinayo maxay tahay ama sababta hoos loogu akhrinayo ma ka ashar badan yahay marka kor loo qaadayo ma wax bisinka alle ka fiican oo la sheego baa jira maxaa ka dambeeyo hoos u akhrintiisa bismillaahi raxmaani raxiim bisinka nabiga ayaa hoos u akhriyey anas ibnu maalig oo taqaanaan markii nabigeenna uu tegey madiina almunawara 10 sane uu madiine joognaaba u adeegayey baa wuxuu leeyahay nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan baan ku daba tukadayo alxamdu lilaahi bay ka bilaabi jireen qiraa'ada marka bisinka kee ku fiican yahay kor iyo hoos maahe diinteennu waa diinu itibaac ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah waattabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa aladiina yattabicuuna arasuula annabiya alummiy waxaase aan idiin sheegaya adiliya aayaada diinteennu waa diinu itibaac laa diinu ibtidaac marka bisinka nabigaa hoos u akhriyey sidii baynu yeelaynaa waxay dhammaystiri doonaa umar wax kale sheekha ugu dari maayo waxaan ugu dari lahaa horta in lala jahro lafteedu wax dhiba ma laha waa sugan tahay laakiin nebigu wuxuu badin jiray salawatullahi wasalaamu calayhi inuu qariyo oo hoos u akhriyo taasaa badnayd waxaas su-aal baan ku celin laha ruuxa su-aashaas soo qora waxaan dhihi laha salaadda midna lala jahrayo qiraa'adeeda midna la qarinayo ta qiraa'adeeda la qarinayo maxaa ku jira maxaa la qarinayaa haddaad tidhaahdo waxba lama qarinaya nebiga asaa naga soo gaadhay tana nebiga inaga soo gaadhay salawatullahi wasalaamu calayhi siduu sheekhu sheegayna weye waa ku raacaynaa maar meeshuu qariyeyna waa qarinaynaa meeshuu kor u qaadayna waa kor baan u qaadaynaa sidaasaana diintu ay tahay wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullah calaykum asalaam waraxmat ullah waxaan maqlay bariga muqdisho xukunka islaamka ayaa ka hirgalay aad baan ugu farxay laakiin dad badan baa waxay ku doodaan maxamed cali mahdi ayaa ku adeegta waayo haddii uusan ku adeegan maxaa isaga maxkamad loo saari waayey ileen 100 qof ayuu dilay aljawaab wixii xamar ku saabsan umal anaa ka xiga jawaabtuna waxaa weeye magaca ansaxo cali mahdi maxamed wey amaa qadiyada isagaa maxkamada ku adeegta iyo saasay wax u wata cali mahdi baad weydiin doontaan wabillaahi tawfiiq su-aasha kale waxaa weeye haddii la yidhaahdo waxa la barto ayna adag tahay sida loo barto wax muhiim ah waddanka aan joogno ee Sweden riba awgeed waxaan doonaynaa fadlan inaad ii balbalaarisaan xalka aan ku heli karo waxbarasho maadi ah oo ina anfacda mustaqbalka insha Allah sheekh maxamed umal mawduuc fadl ilcilm sheekha ku wareejinay maadaama Scandinavianka ay khusayso yani waxa way sheekha ka jawaabay bismillaahi raxmaani raxiim jawaabta ku saabsan ribadiya waxbarashada waxaan ku wareejiyey ajalkii maxamed rashaad u duubo idin yaala wabillaahi tawfiiq
su-aasha kale waxaa weeye waa masale ku saabsan dacwada ama diinta sida loo gaarsiinaya gaalada sidee diinta loogu soo dabaali karaa ama loo gaarsiin karaa qofka gaalka ah waxaan ka wadaa xaggee looga bilaabaya aljawaab waxay ka bilaabataa dacwada innaga oo diinta ku toosna lima taquuluuna maa laa tafcaluun haddaynaan been sheegin ballankana aynaan baajinin muslim baynu nahaye doofaarka iyo khamradii iyo inaaga salaamidda iska dayno gaalada giddigeed waa islaamaysa laakiin goorta innagii aynu dayacannahay diinna ku abtirsanayno aragtiday gaaladu qaadanaysaa waxaa weeye qallooceenna inay diinta ina fartay bay moodayaan gaalada waxa dib u dhigay dhaqan xumadeenna wey marka xaggay ka bilaabataa diinta gaalada marka loo sheegayo waxay ka bilaabataa innaga oo sida isu dhaanna diinteennana ka run sheegna tusaalaan idin hor dhigayaa xilligii koobnaa ay asxaabu rasuulilaahi shaqaynayeen aqala min nisfi qarnin 50 sano in ka yar baa diintu dunida ka dulbaxday raggii watay baa run sheegay iyagoo dhan baa diin naf la geliyey ah qowlkooda iyo ficilkooda baa wada diina tusaale labaad baan idin siinaya dalalka islaamka lagu sheegay dowlad ahaan dalkee u badan indunuusiya 200 milyan bay cagacagaynaysa xadaarimo ganacsato ah baa islaamka gaarsiisay idan diinta xaggee laga bilaabaa laba jawaab bay leedahay see gaalada loo gaarsiiyaa awalan waxaa weeye innaga oo diinteenna ku hagaagna goortan diinteenna ku hagaagna haddaynu gudbinayno taasi waa tan xadiidkeedii qaadanay sheekh umar muxaadaradiisii fa awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allahu ashahaadaynu ka bilaabaynaa kow salaadaynu ku xajinaynaa laba sakadaynu ku xijinaynaa sidii nabigeenna inoo tilmaamay baynu ugu gudbinayna tawxiidka laga bilaabo salaada lagu xijiyo sakada lagu xijiyo balse horta innaga intaynu siday isu dhaanno aynu tarjama saadiqa diinteennii ka bixinno innaga beenta iyo dibindaabyada iyo ballanbaajinta iyo qaabdarrada aynu iska dayno gaaladu markaa waa wada islaamayaane wabilaahi towfiiq su-aasha kale waxa weeye qof meel kugula nool oo intaas qof meel kugula nool ee aad tawxiidka u sheegtay ay dhibayso qof meel kugula nool oo ay tawxiidka u sheegiddiisu dhibayso maxaad ka yeelaysaa sida salaada ma jecla soonka ma jecla salaanta muslimiinta ma jecla ereyada wanaagsan oo dhanna kama helo qofkaas sidee ka yeelaya bismillaah ruuxa muslimka horta waxaa loo baahan yahay hadduu ruux muslima la tacaamulayo ama gaal hadduu la dhaqmayaba in uu siduu sheekhu sheegay kusoo jiito dhaqankiisa inuu kusoo jiito akhlaaqiyaadkiisa inuu kusoo jiitaa loo baahan yahay hadalkiisa ka hor intaa kadib goortaad isku dhabar jebiso ood xaawisho inaad macnaha waxa weye ruuxan kula degan inaad mabda'a ka dhaadhiciso oy kuu suurtageli weydo jid walba markaad u marto oo cinaad iyo madax adayg iyo macangegnimo uu ka sii qaadayo goortaa kadib in aad ka quusato ood ka sabirta ma aha waa inaad macnaha waxa weeye kolba sidii kuu suurtagalaya laynkii kugu suurtagalaya inaad macnaha waxa weeye aad la daba joogto haddana isla markaa in aad goyso haddii ay wax tar u tahay oo goyntaada uu ku edbismayo waa inaad goyso waa goorta
ay bannaan tahay hajriga ama ruuxa inaad ka hijrooto ay bannaan tahay ama adigiiba haddii aad isu cabsato inuu ku ta'hiiriyo oo akhlaaqiyaadkiisii wax kaaga saamoobaan ood wax ka qaadato ayadana inaad ka cararto wey ta saddexaad waxa weeye inaadan saaxiib ka dhiganin oo kalgacaylo iyo saaxiibtinimo aadan u haynin maxaa yeele haddii taasi ay dhacdo qasab waxaa inuu ku saamaynayo nebiguna sal alla alay wasalam wuu tilmaamay almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil buu nebigu yuri sal alla alay wasalam ruuxu saaxiibkii diintiisu iyo caadadiisu iyo dhaqankiisu qaadanaya ruuxu markaa ka fiirsada ciduu la saaxiibay saasuu nebigu lehy salawatullahi waslamu caleyh intuusan la saaxiibin marka ruuxaad la degan tahay eed weelka wadaagtaan ee aad macnaha waxa weeye nolosha wadaagtaan runtii ta'hiir badan buu noloshaada ku yeelanayaa haddii marka aad isu cabsato waxa weeyaan waa inaad ka durugto ood uga tagto meesha haddiise aadan isu cabsanaynin rajana aad ka qabto walow markan hore haba kaa boode laakiin haddaad rajo uun ka qabto inaad daba socoto ood soo dhowayso yaa laga maarmaana wabillahi towfiiq waa sheekh cumar 26 bishii June 1969 waxaa idaacadda BBC laga soo daayay nin lugiya gacan laga goynayo dadkii maqlayna khilaaf ayaa ku dhex dhacay kadib waxaa la isku raacay inay xaq tahay haddii loo eego xagga shareecada laakiin idaacadda BBC waa idaacad reer galbeed ah u shaqaysa sheekh culumada xadka gudaysa ma ku saxsan yihiin ogolaanshaha ay BBC ay ka qaadanayso sawirada iyo codka waxaan filayaa BBC ma fasax qaadato istiidaan ma leh marka waa dad xoogsanaya marka meeshii u suura gashaba inay tuba surtaan fiilo gashadaan shaqaalaha u jooga saad ogtihiin BBC muqdisho aniga waa anigii haddeer bil iyo bar joogay xamar marka aniga oo xamar jooga waxaa xamar ka dhacay BBC baan ka maqli jiray saakay dhaceen galabta bay xaggaa marka dad noocaas oo kalea u jooga inay ku qaataan marka si tuuganimo ah wararka waa dhici kartaa oo aan la ogeyn sidoo kale in la ogaana waa dhici kartaa oo haddii la ogaa nafteeda in la qariyo qofkan lugtiya gacanta laga goynayo maaha sababtuna waxa weeye xuduudda marka la fulinayo waxaa la rabaa in lagu baqdingeliyo qofkan lugtiya gacanta laga gooyey waxa looga gooyey ku dhiirashadooda baa dadka intiisa kale lagu baqdingelinayaa wadalika fii qowlihi tacaala walyashhad cadaabahumaa taa'ifatu min almu'miniin hadday zina tahay ama ay xatooyo tahay goorta la oofinayo in fagaare lagu oofiyo ummad badanna ay ka qayb galaan marka ay u noqoto canaan ay ma jiirto wixii nafiga shaydaan u sheekaynayeen rabayna inay arrinkaas sameeyaan baa loo dan leeyahay marka amaa qoladan gaalada ah col baynu nahay qolada waddankiina reerba awyaa ku leh hawiya maalin bay muluqlaynayaan haddaynu ahaan lahayn gob dhaqan oo dalka fiise loo qaadanayo oo dawlad ilaalisa dalka ay jirto oo cagaha markay soo dhigaanba lala kowsado nabad sugid iyo bilays dhan walba laga dhigo waxay ahaan lahayd waddan waxaa ka dhacayaa laga warqaba haddayan intaas jirin taa iyo ka daranba waa nagu dhacday ubadkayagii iyo ahalkayagii beerkiiyo wadnaha lagala baxay cid ogna male qaarna nolol baa lagu soo qaatayoo obsaali iyo waxay joogaan denmarig iyo tal abiib bay joogaan dad noolnool baa la soo dhacay markaa dhibaatooyinkana haysatay taasi ka mid tahay hadday markaa tuuganimo ku gurteen oo marka ay intay urursadeen oo gurteen waxyaalihii dhacdooyinka ahaa ay markaa u isticmaal habdicaayada iyo haddii meesha fagaarahe lagu qaadayeyba ay ahayd meel loo dhannaa walyashhad cadaabahumaa taa'ifatu min almu'miniin tii alla sheegay bay ka soo qayb galeen waxaana guntiye ay ku wadeen labadaba suuragal wey calaa kulli haal mawduucan
waxba muhim oo saasa ma aha wabilaahi towfiiq ilmaha 3 bilood iyo wixii ka yar ma yahay saqiir magac ma loo bixin karaa ma la aasi karaa بسم الله horta saqiir wuxuu la jeedo ma garanayo saqiir way ma la dhihi karaa maxaa ula jeedo mafhuumka su'aasha waxa laga garanayaa ilmo 3 bilood ka yar ilmo 3 bilood ka yar iyo ilmo 3 bilood ee wixii ka yar ma yahay saqiir magac ma loo bixin karaa ma la aasaya waxaysan u kala cadayn ilmo 3 bilood uurka ku jiray miyaa oo markaas maaragtay soo dhacay asagoo xajmi yeeshay mase waxa weeye ilmo dhashay oo markaas 3 bilood jira su'aashaas waxa moodaa inay maaragtay duuduuban tahay laakiin labada waji way qaadan karaysaa بسم الله الرحمن الرحيم hadday su-aashu tahay qaybta hore oo macnaha 3 bilood isagoo urka ku jiray buu soo dhacay jawaabteedu waxa weeye ilmo ma noqonin ilmo inuu goor u noqdo muuse gaadhin maxaa yeelay yani weli wuxuu ku dhex jiraa calaq ahaan buu ku dhex jiraa cahdigii calaqada ayuu ku dhex jiraa ma noqonin ilmo weli haddii uu dhiig ahaan u soo daatana dee dhiigaan buu u soo daatay hadduu cad ahaan u soo dhacana cad ahaan waa la aasaya qaybta labaad hadday tahay oo ilmihii markuu soo dhashay oo uu adduunka yimid 3 bilood intuusan gaadhin hadduu dhinto ma loo magac bixinayaa mise loo magac bixin maayo dee intii ka horraysay dhimashadiisa waa loo magac bixin karay mar hadduu adduunyada ku soo biiray goortii dhintay kadibna dee ilmo dhintay looma magac bixiyo ilmo dhintay looma magac bixiyo ka hor laakiin waa loo magac bixin karay ma la aasi karaana dee iyaduna meesha kuma jirto waxaad moodaa marka qaybta hore inuu u jeeday qaybta hore hadduu cad ahaan yahay oo hilib ahaan ku soo dhaco waa la aasay ma uu yeelanayo laakiin salaad iyo axkaamtii kaleetay macnaha sharciga ahayd ma uu yeelanayo waa un la aasaya maarta god baa la gelinaya wax kaleeto oo axkaamana ma uu laha hadduu dhiig ahaan ku soo daatana iyadana dee xugum dhiigun buu qaadanayaa xugum kaleeto ma uu laha wabillahi tawfiiq maxay tahay sheekh maxay tahay dadka leh ilaahay meel kasta ayuu joogaa cilmiga iyo qudrada maxaa lagu kala tafsiiri karaa maadaama dad leeyihiin qudra cilmiga iyo qudrada waa laba sifo min sifaati illaahi caza wajal wuu isku tilmaamay labadaba inuu yahay waxaynu helaynaa hal aayad gudaheed fii suurati talaaq oo sidaa cilmigii iyo qudradiiba ay ugu jiraan wadalika fii qowli rabbina tabaaraka wa tacaala litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilmaa cilmigii iyo qudradii baa labadaba halka aayad la ysugu geeyey kolka cilmi iyo qudro laba isku darsan maaha cilmigu waa aqoon ka warqabid wax laga warqabo awoodduna waa maquunin wixii laga warqabay la maquuniyo rabbigaan labada uu dunida ku meelmariyey waa labada cilmi kooba oon wax ka qarsoomayaa la arkin iyo awood buuxdo isgaarsiisan oo dunida lagu maamulo labada sifo ee daa'iman soo aroora waa labadaasoo rabbi wax walbana waa og yahay siduu rabuuna ka yeeli karaa markaa siduu rabuu ka yeeli karaa waa qudradii waa og yahayna waa cilmigii amaa meel walbuu joogaadu waxa meel walba jooga waa labadan alcilmu waalqudra oon rabbi ahayna sifadiisii ah weeye waxa meel walba jooga amaa daatuhu alcaliya rabbigeen daatadiisa fowqa carshihi wa fowqa makhluuqaatihi
وبائن من خلقه ربيان عرشيسو كسريا أون إليكيبو كسريا ربيان خلقنا ربيان كما لحجيرو إسقي بانوشة سبحانه عز وجل قرآن كريم كاميرات ربنا تدبقر ثم استوى على العرش إسقوا ربيان إسكان برايا ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تعرج الملائكة والروح إليه في يوم والعمل الصالح يرفعه آمنتم من في السماء مركا ربي قال إنا كسر رأيه وإذاته العلي إنا كسر رئيسه هسا يشاء قعنت إنه هيه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إنه علمي أودنا نقول كوبي لا تديس مقدس كأونك أي كسر رئيسه ما ربي قال نوشيغي وحيساك كي يقال نسويا ملئ فاسأل به خبيرا هذه اللي قد بإساقنا أعلم الخلق بالخالق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أون إذيلك الله وحاو يقان رسولك إساقنا سداسو حديث بدن نوغو شاقي أين الله أبو قبر كويري في صحيح مسلم نبي قيبا قبر ويدي حقاء اللجرة في السماء بيتر إمام بو أقري امتحان بونا أويدينا يي أعتقها فإنها مؤمنة سيدو كلام مدري بادية با النبي قد دعوية الدين قد بنا يي مركزوكو يري كم إلها تعبد ما إله بعد عبد أوضي 6 بو يلح حقيقة لجوغان بو يري 5 في الأرض و1 في السماء بو يري هل كرجرة إيا شنولك لحداسا عابدا وحكو يري اعبد الذي في السماء شنتان لك كل جوك تدانو قبح كاس عابد مركا وحو رسولك إني إنو شيغي إن ربي وحن لا يابي وين إنو جوغا لغا يابو صوماليا وربي هذا الكيكا قبطي با إنو جوغا شرك شلبان مقابلة شيكا قبنا ليش هذا اللي ما يويلك لكن قول ألا قورتو إلى سوق له هذا الكي نقد حي إنه درايا قو إنه حق أدينا قورتو إنها سمدا أدينا أيو ربي بو شيقايا وهذا قاتي فدري إنيتا وعلو الله على خلقه والو أبوريا انت أن هدينو على بريينو كعما سامحينو لأن حق ما ندون حق ما ندون هوس ما نقنبينو ساس محنو لنا فطري وي كل كافدرة دي أبوردي هي النصوص دي الشريعة دي عقلي حتى عقلي ولله المثل الأعلى حتى أديك إلهي مالو قوندي هدين لقو يرا كرم بعد مرين له إدماه إله موس بعد مرين له عقلا ونقلا وفطرة بربي أنكيس أغسر يا أما ذاتك وروريغي سنايا نرجو لهم الهداية ونبات قف مسلمة ألنا أنا قولين أما مالو كشيغ أنا قولين أما مالو سنجرين كشيغ يا وبالله توفيق waxaan doonayaa in layga jaahil bixiyo arrinta wanqalku ma farad baa mase waa sunne marka ma wiilka keliya ayuu khuseeyaa mase wiilka iyo gabadhaba jawaabteedu waxa weeye waa sunna mu'akkada weeye waajib maaha sida loo badan yahay aadna moodo inay xoog badan tahay والقلق معها واجب معها والسنة لكن والسنة حق بدنوي ويكفي إنه نبي كسوين صلوات الله والسلام عليه يسوون السميي ومدنا كبوري
ku filan inaad macnaha waxa way ku dayato haddaad karaan iyo awood balada taasi midaas weeye talabaadna wiil iyo gabadh waa ka dhaxeeya sharciga wiilka kaliya ma siinin gabadhana ma reebin labadoodaba waa siiyey laakiin waxaa sugan in raggana laba laga gowrici jiray haweenkana mid laga gowrici jiray taas waa sugan tahay labadooduba laakiin wanqalka waa wada leeyihiin sida sharcigu u sugay haweenka iyo ragguba waa wada leeyihiin xugum ahaanna sunno weeye wabillahi tawfiiq kiruna waxay tahay meel cadceedu mararka qaarkood aysan ka dhicin ama 6 saac oo habeenkii la arko marka sidee loo tukanayaa ama loo soomayaa kiruno waa magaalo ku taala waqooyiga fog ee Sweden عمر. بسم الله الرحمن الرحيم soonka iyo salaada waa kala duwan yihiin markaas sababta waxa weeye waxa la soomaayo waa maalin ee habeen ma hadday dhici weyday kolka oy maalin joogto ah tahay qur-aanku wuxuu sheegay xilliga la soomo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl ilaa salaada ka caddaato cunidii iyo cabiyi hawlihiinii kale wata salaada hadday caddaataana waa la afreebanaya ilaa habeenka laga gaaru soonka soconayaa marka dhulalka noocaas oo kale ah haddii uu jiro wax habeen lagu magacaabo iyo wax maalin lagu magacaabo tan soonkan weli ku jiraa inta maalin lagu magacaabay qoraxi bannaantan waa la soonaanaya goorta qorax la waayana waa la afuraya in labada midun badanayaana waxaa noo sheegay rabbigeen oo la isdhexgelinaya labadooda marna rabbigeen yuuliju leyla fi nahaari wa yuuliju nahaara fi lleyl marna yukawiru leyla cala anahaari wa yukawiru nahaara cala alleyl inay isku duubmayaan oo isdhexgelayaan waa laynoo sheegay marka haddii uu habeen iyo maalin magacii wax ka dambeeyaan marka inta maalin loo yaqaano waa la soomayaa inta habeena haba yaraatee waa la afursanaanayaa haddii markaa labadii mid la waayo sida hadda su-aasha ku cadoo kale habeen baa la waayo oo qoraxdii baa iska muuqataa meeshan taal markaa fuqahaadu aqwaal bay leedahay dhowra aqwaasha waxaa ka mid ah dalka ay arrintaasi ku dhacday dalka u dhowee muslim degan yahay inay jaangooyiya qiyaas ka qaataan maalan innagoo kale yurub baynu ku noolahay dalalka muslimkee naga fogeyn waxaa ka mida turkiya ka mid ilaa qaarad ahaan turkiya yurub bay uga tirsan tahay marka qorshihii turki baynu qaadanaynaa inana ku dabaqaynaa waxaa markaa daran salaada sababta waxaa weeye salaada wakti la xadiday bay leedahay haddii habeen la waayo kolka laba wakti baa la waayaya waa maqrib iyo cish qoraxdu hadday dhici diido laba xilli baa la waayey waa salaatu almaqrib wa salaatu alcishaa oo labadaba ay salaad habeen dhacdo ahay mar waxaa leeyahay cibaadu hadday mu'aqato tahay ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaba mawquuta cibaado la waqtiyayo xilli lagu saleeyey hadday taho xilligii la waayo cibaadadiina waa la waynayaa la samayn maayo ra'yi baa odhanaya ra'yina kii hore uu ku darsan yahay qorshaa la degsanaya ama ha ka qaateenoo dalka ugu dhow ama iyaguba intay awqaaddii xadidaan ijtihaad sameeyaan xadiidkii nabiga ha cuskadeen markuu nabigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam
gaalka iman doona oda dijaal la yidhaah dajaal maalmihiisa oo kala duwan yowmun ka sanatin wa yowmun ka shahrin wa yowmun ka usbuuc wa baaqiyatu ayaamihi ka ayaamikum haadaa maalinta koobaad sanad bay la eg tahay maalinta labaadna bil bay la eg tahay maalinta wiig bay la eg tahay markaa nabiga su-aal baa loo gudbiyey laleeyahay maalinta sanadka la eg waa maalin wixi sanad bayna la eg tahay ma nagu filan tahay 5 salaadood nabiga waa uu diiday maya qiyaas u dejiyo sanad salaadii baa la idinka rabaa buu yidhi faqduruu lahu idan dadka ay ku dhacdo xilli waa ama habeen waaya ama maalin waaya xadiidka inay cuskadaan oy jaangooyo sameeyaan iyo dalalka ugu dhow ay habeen iyo maalin ka jiraan inay ka qiyaas qaataan oy ku dhaqmaan labadaa ra'yi baa loo badan yahay qoladan leh cibaadadu hadday wakti ku salayneedee waktigii la waayiyadiina waa la waayeyna waa ra'yi jira laakiin walasnaa calayhi kaa kuma soconno wabilaahi towfiiq sheekh cumar salaan culus kadib markaad koonfurta soomaaliya tagtay ma u sheegtay kelimatu tawxiid ragga soomaaliya wareershay maxayse kugu jawaabeen salaadse ma kula tukadeen awalan waxaan idinku bishaaraynayaa koonfur iyo waqooyiba ummadda xamar joogta ama dalkii joogta weydinkoo kale ilaahay mahadi ha ka gaarto saanay saxwadiiyo diintiiyo tawxiidkaba uga jiraan siday meeshaan uga jiraan bay xaggaba uga jiraan amaa salaad ma kula tukadeen iyagaa i tujin jiray safkaan geli jiray markaa nimana imaa waana ogtihiin imaamka raatibkae rukunka ka qiimi badan imaamka socotada marka shabaabka iyagaa i tujin jiray anigana safkaan geli jiray xag cibaadi iyo salaad iyo diin iyo xijaabna haddayan idinka sidanin wey marka waxay ku jirtay warbixintaydii inaan idiin sheegay dalkii markaad cagaha dhigtaan madharka iyo muuqaalka indhaha lagu dhufanayo inuu islaami yahay wabilaahi towfiiq waxaa ku qasasheen baraarujintii sheekh maxamed oo aniga aanan garanin inaad odayaasha u dan leedihiin anigu inaad dad weyne iga waraysanaysaan baan idin moodayey odayaashu meelay ku tukanayaan maarag xilliyaalkaan u tegayna xilliyaal salaad ma ahayn iiddii maqalkaan haya iiddii oo ah iid weyntii carafo haydiid wuxuu ku tukaday marwaas goor dadku tukaday buu yimid markaa miduu watay baa ku tujiyey marwaas marka haddaa odayaashii i weydiiseen waa ogtihiin odayaasheennu xataa hadday tukan jireen dadka lama tukan jirin munaasabaadka maahe iidaha iyo meelahaas oo kale wabilaahi towfiiq su-aashu waxaa weeye walaal iskuullada aan dhiganno waxaa laga dhigaa lifsin maadada loo yaqaan oo macnaheedu yahay ilxaad ama diin ma jirto wax la yidhaahdo ama laga dhigi doonaa markaa waxaa laguu soo dhiibayaa casharo guri masalan tusaale ahaan gabar muslimada ah ayaa lagu yidhi ilaahay soo sawir haddaan wax iska malmaluuqo oo aan idhaahdo waa kan dembi mayaa layga qorayaa
dembi mayaa layga qorayaa waalidka ama carruurta mushkilana waxay ka jirtaa dadka Soomaaliga waa hilmaameen qoraalkiisina waa lagu liitaa akhriskii su'aalaha waa nagu dhibateen marka su'aashuna waa su'aal dabcan la xiriirta iskuulada laga dhigto wadamadan Scandinavia maadada waxa lagu dhigaa baa la yiraahdaa Lifsin waa afnooshka macnaheeduna ay ilhaad ama diin wax la yiraahdo ma jiraan diinuhu waa quraafaad ardadiina waxa la soo siinayaa midalan su'aalo iska falsafiya oo loo oranayo bal soo sawir ilaaha jira ee aad aaminsan tahay oo maaragtay shaqa looga dhigayaa haddii marka ilmihii yaryaraanta wax loo malmaluuqo loo xarxariiqo la yiraahdo waxaan u geeyo waa ilaah dheh ma dambi baa ka imaanaya bismillahir rahmaanir rahiim mawduuca su'aashan ku cad waa mawduuc caqiidaduna beerkeeni iyo wadnaheeni wey nimankan gaalada ah ee la noolahay goortaynu heshiinayna ama goortii la isdhiibayay qofkan wuxuu isku dhiibay muslimnimo haddaba waxaa kuugu jirta kombuyuutarka ama diiwaanka ama buugga inaad muslim tahay waxaa kana muslimnimadii bay ka soo horjeedaan waxay tilmaamayaan qurunkoodii wey iyagaa oday beenbeena boombalaa meel walba ku dhajiyo waa ciise yidha ciise oday ma ahayn isagoo dhallinyaraha baa dunida laga qaaday haddaba ubadku maadada inuu dhiga ma aha adiga aabbaa inaad u malmaluuqdaana maaha waddanku dimuqraadi bay nimanka ku sheegaan ixtijaaj in la qadimo wey ixtijaajka waxaa weeye ulul amarka ama waalidka waa inuu iskoolka tagaa ama wixii mas-uula jamciyaadku waa inay tagaan yidhaahdaanna carruurtayada waxaas looma dhigi karo iyo waxyaalaha lamidka ah oo akhlaaqda iyo dhaawacaya waa in la yihaa lama yeelayo waxaan filayaa iskool islaami ah oo ay soomaalidu gacanta ku hayaan baa ka furan Gothenburg iyo Malmi iyo Stockholm intuba oo mawaada ay ka maqan yihiin qaabka daran caalami ma jooga waa shaqaynaya rag ka warhayaa kolley jooga marka iskoolada islaamka geysta yaanan la dhigin taas midda labaad waxaa wanaagsan ilmaha intaan iskoolka noocaasa la geyn horta islaamnimada in laga dharjiyo oo ay yaqaanaan iyagoo yaryar caqiidadii islaamka baran meesha haddii la geeyo wareer wey cinaaya murakasa dadaal dheeraada in la sameeyo oo carruurta haba wareereene wixii lagu soo shubo maalintii haddana cawadii laga shubo haba ku wareereen hadday doonaan waxay gaalada sameyn khalad loo fahamsiiyo calaa kulli xaal dhibaatooyinkana haystay taasu ka mid tahay aan lagana siraad koray in la guuro maahe wabilaahi towfiiq su-aashan ayaan ku hakinaynaa su-aalihii aan wadnay maadaama muxaadarooyinkii isdaba galeen waana sii wadi doonaa waqtiyada soo socda haddii ilaahay yidhaahdo su-aashu waxaa weeye sheekh waxaan ku su-aalayaa odaygayga ayaan isqabannay ama iskhilaafnay wuxuu yidhi 3 ayaan kugu furay markaas baa la yidhi 3 qof laguma furi karo mar labaad ayaan isqabannay rag ayuu igu soo yeeray wuxuu yidhi 1 dalaaq baan ku furay haddana waxaa la yidhi kaama furanto marka waxaan doonayaa inaad jawaab i siiso sidaasay qoran tahay su-aashu marka wixii sixidana insha allah waa lagu sameeyaa aljawaab waa ii imanaysaan labadiinna qof keliya ta u jawaabi maayo
waataan ku dagaalami jirnay aniyo gabdhaha weli meeshii baan taagnahay arrin qof wata hadday isoo gaarto waa jawaabayaa haddayse arrintu laba ka dhexaysa labadii baan u baahnaa nebi daawuud baa lagu canaantay gar qof loo naqay haddaba waxaan rabaa labada qof ay arrintaa dhex martay haddeerba inay ii yimaadaan hadday joogaan haddii kalena culamaa joogtay culammaday u tagaan hadday yihiin reer gotemburg sheekh cabdirashiid baa jooga u taga haddaad olba ka timaadeen maxamuud sheekh xasan baa jooga haddaad denmaari ka timaadeen sheekh maxamed daahir baa jooga fiinland haddaad ka timaadeenna sheekh axmed nuur baa jooga stockholm haddaad ka timaadeen cumar faaruuq baa jooga idan arrimaha noocaas oo kale ah labaday dhex mareen baa israacaysa mashaa'ikhday u tagaayaan alxukmu bishayi farcun can tasawurihi goorta xukun la ridaayo horta shaygiioo kaamila ku hor yaal marka waxaan ku jawaabay inay labadaa qof culammada u tagaan diinta taqaan wixii jirana u sheegaanan culammada lama jaro habaabinin labaday qof ay arrinta ka dhexaysayna ay u tagaan haddii loo baahdaana wixii maqlaayey baa u tagaaya jawaab xalaaloo tiftira baa markaa la helayaa wabilaahi towfiiq